marka dembigaagu bato oo aasaantaadu badato ayadana waxaa ka dhashay in qalbigaagu madoobaado sida xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku tilmaamayay adoonku markuu dembi galo dembigaasi dhibic madow uu qalbigiisa ku dhaliyaa mid kale hadduu galana mid kale uu ku dhaliyaa hadduu toobad keenana waa laga tiraayo waa laga saxaa waa laga soofeeyaa hadduu ku laabtana way ku noqotaa ilaa qalbigiisu wada madow noqdo mar hadduu qalbigu madoobaadana haba yaraatee waxba qaadan maayo laanna qalbigu sida quraanka kariimkuma tilmaamayo qalbiga bini aadamku indhuu leeyahay uu wax ku arko oo aan ahayn indhaha madaxa ku yaala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur qalbigu waa indhabeelaya وبالتالي waxba ma kala saari karo waxna ma kala sooci karo ذنوبته hadday kugu badato tawbadaadi iyo soo noqoshadaaduna yaraato waxa ka dhalanaya in qalbigaaga madow fuulo oo isagoo dhan madoobaado وبالتالي quraanna gali maayo wacdina qaadan maayo mana saamoobayo wa ka rabbi tabaaraka wa ta'ala ku tilmaamay idha tutla alayhi ayatuna ayatkanaga marka lagu dul akhriyo meeshii la rabay inuu kuwaana qaato intifaacsado yaa wuxuu leeyahay asaatiirul awwaliin waxaan quraan ma ahay waa sheekooyin la soo ururiyay ummadii hore ku tiri kutoontadii waxay ku sheekaysay sheeka baraleedoodii waa maxay yeelay muxuu qaadan waayay markuu halka ka baxay warka uu la yimi waxa uga dhaweyd inuu intifaacsado muxuu intifaacsan waayay allah wuxuu tabaaraka wa ta'ala kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun qulubtooda korkeeda waxa daboolay wixii ay kasbanayeen ذنوبتي galayeen baa qulubtooda dabooshay oo iyaga dhamadaxal iyo mugdi saartay sidaas daraadeed quraanka waa inay yiraahdaan asaatiirul awwaliin waxba ku qaadan maayaan waxa jirin bay ka sheegaya quraanka kariimka laana ma diyaarsana inay intifaacsadaan mawaanicda waxa kamid ah walaalayaal arrufqa sayyi'a saaxiibka xun ee la socoto ee la noosho ee la fadhiisato ee la shahacabto wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mawaanicda ah ee ku diida inaad waanadii wacdiga wax ku qaadato laana isaga ka kaxaynay nabigeena waxa ka soo sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ruuxu saaxiibkiisa ayuu ku diin ku dhaqaya ku akhlaaqiya isaga marka kullu goynay isaga kulluminaya isaga wanaagii ka kaxaynay saasaraadii rabbi quraanka wuxuu inoogu sheegay nin calaya oo aakhira markuu tagay saaxiibkii oo lugooyadii markuu arkay buu marka calaa la jeesaday oo muxuu tarayaa wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday maalinta qiyaamada maalinta iyada kii dhaalimka ahaa labadiisa gacmood buu qaniinayaa gacmuhu qaniinaya markaas wuxuu leeyahay laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuuli sabiila shalayte maxaan rasuulka la jirankiisa jid u samaysan waay maxaan rasuulka u raaci waay jidka rasuulka maxaan u mari waay yaa waylata laytani lam attakhid fulanan khalila shalayte maxaan hebel saaxiib uga dhigtay maxaa ii geebalaya la kuridkan maxaa saaxiib iiga dhigay war muxuu kugu sameeyay لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني قرآن كيبو يقلبي قرآن كيبو يقلعي قرآن كيبو يقدوي مركو متكدب ماشان قرآن كبر الله إساقا إكحيستي ماشان أخرسان لها إساقا إكحيستي ماشان درسك فريسان لها إساقا إلوغوي أو قرآن كي الذكري إقرم مريي فلا يدن محا صاحب يقدقي بولي ومحا كتري على عالكمالين كاس سيداس درادي صاحب كحن iyo dariska xun waxay ku waa maanic kamida marar fara badan khayrka iyo wanaagga iyo intifaacsiga ka hor istaaga intaas oo dhan waxa asal u ah shaytaanka oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala hadaadan kaga cararin waa maanica ugu weyn oo ka hor istaagaya kaalana dagaalamaya inaad waanada quraanka iyo wacdiga wax ku qaadato saas daraadeed baa waxa rabbi ina amray quraanka markaynu akhrinayno oo bilaabayna akhriskiisa inaan ilaahay magan galno shaytaanka magan wa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaytanir rajim ista'id billah li'annahu mani' wa ku halmansinaya
macnihii buu kuu diidayaa qaadashadii buu kaa hor istaagayaa daawadiisu maxay tahay istacid billah allah ku carab allah ka magan gal tabaaraka wa tacaala waa mawaanicda ugu khatarsan ee dadka inta badan iyo waanada iyo wacdiga qur-aanka inay qaataan isu diida ee kala dhex gala wey mawaanicdaasi hadday meesha ka baxdo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala shuruudii aan soo tilmaannayna la helo booskii saalixaha iyo qalbigii noolaana aad la timaado qur'aankii oo mu'ahiroo saameeyo ana aad hesho intaa haddaad isla hesho biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qur'aanku wax buu kaa bedelaya noloshaadana saamayn buu ku yeelanaya qalbigaagana saamayn buu ku yeelanayaa hadalkaaga iyo ficilkaaga iyo xubnahaagana waxbuu ka bedelaya aakhiradaada iyo adduunkaagana waa ku anfacaya waa marka aad la timaado qaabkii aad qur-aanka uga faa'iidaysan lahayd oo ah waxyaalaha hor istaagayana inaad meesha ka saarto shuruudahana inaad ku dadaashood la timaado booskii iyo weelkii wax kuu qaadi lahaana inaad diyaarsato taa iyadaabay wax ku imaan karaane salluu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi